waxaana wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeenna xogta dunida qaybtan koowaad daawadayaal waxaanu diradda ku saari doonnaa wararkii ugu dambeeyay dagaalada ka soconaya ukrein oo xaqiijisay inay burburiyeen markab weyn oo uu lahaa ruushka oo dagaal ah ciidamada ruushka oo gacanta ku dhiga mid ka mid a magaalooyinka istaraatiijiga ah ee dalkaasi duqeymaha culus ee ruushka uu ku hayo magaalada kiif iyo deegaano kale oo ukrein ka mid a dadkii ugu badnaa oo la bilaabay in laga badbaadiyo magaalada kiif kadib markii ciidamadii ruushka ay usoo dhowaadeen nato oo shaacisay tirada askarta ruushka ee kaga geeriyootay dagaalka ka socda wadanka ukrein muddada bisha ah daawadayaal mar kale soo dhowaada daawada fadlan haddii aad naga cusub tahay janaalka subscribe inoo saar sidoo kalena furgambaleelka saad u noqoto daawadana ugu horeeya dhanka facebook haddii aad naga daawanayso waxaan kaa codsanaynaa inaad soo follow garayso muuqaalkana noo sii share garay mahadsanid aynu ku bilowno iyadoo la wada ogyahay dagaal qaraar oo u dhexeeya ruushka iyo sidoo kale ukrein inuu ka soconayo gudaha wadanka ukrein islamarkaana dagaalkan uu galay maalintiisii 29aad si kale haddii aynu u eegnana waxa uu maanta ku beegan yahay maalintii uu bilowday maadaama taariikhdu ay tahay 24 maarso dagaalkana uu bilowday 24 febraayo ayaa haddana dagaalka waxaa jiro guulo la kala sheeganayo iyadoo khasaaro culusna uu jiro haddii aynu ku bilowno maamulka magaalada odessa waxa ay sheegeen inay dileen 3 ka mid a askarta ruushka ah sidoo kalena 11 kale lagu dhaawacay weerar ay ciidamada badda ee ukrein ku qaadeen dekeda lagu magacaabo berdyansk ee ay ku sugnaayeen ciidamada ruushka ciidamada badda ukrein waxay sidoo kale sheegeen inay burburiyeen markab weyn oo ruush ah oo soo gaaray meel u dhow dekeda berdyansk ee badda azov inkastoo iyagoo hadalkan uu ku kooban yahay laakiin dhanka dowladda ruushka aanay wax war ka soo saarin wasiirka difaaca ee ukrein oleksi ayaa isna waxa uu sheegay in ciidamadoodu ay soo rideen in ka badan 100 ka mid a diyaaradaha dagaalka ee ruushka ayna burburiyeen sidoo kale in ka badan 520 taangi iyo 1500 oo gaadiidka gaashaamana tan iyo markii uu dagaalka bilowday waxaana uu carabka ku adkay in weli ay iska difaacayaan ciidamada wadanka ruushka waa sida uu hadalka u dhigay dhinaca kalena wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa waxa ay sheegtay inay heleen macluumaad cusub oo caddeynaya kuluglaanshaha benticonka ee horumarinta qeybaha hubka wadanka ukrein taasoo ka dhigan in dagaalka lagu soo dari doono maraykanka mar haddii ruushka hore uu uga digay in qof walba oo taageero siiya ukrein ay ka dhigan tahay in safka hore ee dagaalka uu ku jiro ra-iisul wasaare ku-xigeenka ukreinna waxa uu leeyahay waxaan ku heshiinay inaan furno 7 wado oo ammaana oo maribol iyo sidoo kale xaafadaha kala duwan ee kiifa si dadka halkaasi looga badbaadiyo inkastoo ruushka uu duqeyntiisa aada u sii xoojiyey wasaaradda difaaca ee ruushka waxa ay xaqiijisay in ciidamadaydu ay si buuxda ula wareegeen magaalada izum oo maalmihii ugu dambeeyay dagaal qarar uu ka soconayay kana mid ah kharkiif wasaaraddu waxay intaasi ku dartay in habeenkii xalayta ahaa ay gantaalada ridada dhaadheer ku garaacday xarumaha ciidamada ukrein iyada oo xustay inay burburisay 13 gantaal oo difaaca cirka ah oo ku yaala koonfurta caasimadda dalkaasi ee kiif geesta kalena haddii aynu eegno nato waxa ay ka hadashay khasaare ay sheegeen in lasoo gaarsiiyey ciidamada wadanka ruushka inkastoo sargaal ka tirsan nato uu kala hadlay tirada marka la eego haddana waxa uu leeyahay inta u dhexaysa 7,000 ilaa 15,000 oo askari oo ruusha ayaa ku dhintay hal bil kadib duulaanka ukrein waxaa sidaas wakaalada wararka ee a b u sheegay sargaal sare oo ka tirsan nato sargaalka oo haddana hadalkiisa si kale isku dhaafay waxa uu leeyahay waxaa loo malaynayaa in 30,000 ilaa 40,000 oo ruusha loo malaynayo in lagu dilay ama lagu dhaawacay dagaalka ruushka ma uusan sheegin tirada rasmiga ah ee dagaalka uga dhimatay tan iyo 2 maarso markaas oo uu sheegay in 500 ka mid a ciidamadiisa ay dhinteen marka loo barbardhigo duulaanka ruushka ku qabsaday afghanistan islamarkaana socday 10 sano waxaa kaga dhintay ilaa iyo 15,000 oo askari ukrein ayaa sidoo kale dhankooda aan caddeyn tirada dagaalka kaga dhimatay iyadoo madaxweynaha ukrein uu sheegay 2 toddobaad ka hor in 1300 oo askari oo ukrein ah ay dhinteen ra-iisul wasaare ku-xigeenka ukrein ayaa arbacadii waxa ay u sheegtay reuters in ukrein ay adeegsanayso softwareka aqoonsiga wejiga si ay u aqoonsato meedadka askarta ruushka ee dhintay si ay ugu wargeliyaan qoysaskooda mikhailo fedorov waxa ay sheegtay in wadanku isticmaalayo tiknolojiyadda ay bixisay shirkadda clearview ee fadhigeedu yahay new york dhanka kalena hogaamiyaasha nato ayaa ansixin doona kordhinta ciidamadooda ku sugan bariga yurub kadib shir degdeg ah oo loo balansan yahay sida uu sheegay xogayaha guud ee nato xogayaha ayaa tilmaamay in 4 kooxood oo cusub loo diri doono slovakia hungary bulgaria iyo romania nato ayaa sidoo kale ku heshiin doonta taageero dheeri ah oo la siiyo ukrein oo ay ku jirto
ka ilaalin isticmaalka hubka kiimikada biologiga iyo sidoo kale nuclearka. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky oo jeedinayay khudbado muuqaal ah xilliyada habeenkii ah tan iyo bilowga dagaalka ayaa ugu baaqay dadka adduunka oo dhan inay si cad u mudaharaadaan maalinta Khamiista oo bishii labaad la geli doono marka loo eego weerarka Ruushka. dagaalka Ruushka ma aha oo kaliya dagaal ka dhan Ukraine, macnuhu aad buu u ballaaran yahay ayuu yiri Zelensky. Ruushka waxa uu bilaabay dagaalka ka dhanka ah xorriyadda ayuu sii raaciyay isagoo sidoo kale yiri tani waxay bilow u tahay Ruushka. inkastoo reer galbeedka iyo sidoo kale Ukraine laftigeedu hadda ay cabaadayaan oo qeyle dhaan xoogan ay muujinayaan dagaalka oo socda bil kaliya horey waxaa jiray dalal badan oo caraba oo ay ugu duuleen oo micno daro ay ku laayeen dadkii ku burburiyeen guryahoodii kuna sheegi jireen NATO laftigeedu inay tahay howlgal sharci ah oo loo baahan yahay, sida howlgalkii Liibiya ee lagu burburiyay dowladdii dhammeed ee dhisneed ee waddan xukumaysay ee dadkeedii ka intifaacayeen maanta u bedeshay meel dagaal sokeeye uu ka socdo. ayaa dagaalkaas markii ay qaadeen waxa ay yiraahdeen waa duulaan sharci ah. laakiin Ruushka oo markan isagu doonaya in uu dalkiisa ka badbaadiyo aafada NATO waxa ay leeyihiin waa gardaro. sababtu waxay tahay Ruushku wuxuu taagnaa oo kaliya dalkan dariskayga ah yaan lagu soo darin NATO. sababta aniga dhib ayaa ii tahay, laakiin waa ay diideen. hadda dagaalku waa uu socdaa, burbur xoogan ayaana ka dhashay. laakiin wadankii shalay lagu kari lahaa waa dowladda Ukraine la dhaxayay hagelina NATO, maanta waxay taagan yihiin NATO ma rabno. laakiin Ruushka hadda meel uu ka noqdo ma jooga. sababta tahay Ruushka waa muhiim inuu gaaro hadafka iyo danaha hadda uu leeyahay. ka hor waxa ay suuragal ahaan lahayd haddii Ukraine ay ku dhawaaqi lahayd inaysan NATO ku biirin in dagaalka uu joogsado, Ruushka aanu gobolo kale aqoonsan lahayn, inaan weerar kale la qaadi lahayn. laakiin markii weerar kale soo qaaday oo ciidamo badan iyo hub badan ku qasaareen wadanka Ukraine ayay Ukraine taagan tahay aniga NATO shaqo iskuma leeyihiin mana doonayo. waayo waxa ay ogaatay in NATO aysan wax garaba ka helin. reer galbeedka markii hore Ukraine waxay ugu sheekeeyeen iska celi oo gal dagaalka, annaga ciidamo kuu soo dirayna waana la dagaalamayna. laakiin waxay ku ekaan waayeen oo kaliya 3 arrin. kow, inay soo diraan hubkaas oo ciidamadii Ukraine ay saacad gudahooda uga dhamaato markii la soo diro. 2, in warbaahinta ay cambaareen u soo mariyaan Ruushka. tan saddexaadna waxay tahay in ay markasto ku hanjabaan ama soo rogaan cunaqabateeno oo ilaa hadda aan loo jeedin Ruushka wax ay ka bedeshay. tusaale ahaan dagaalka uu sii xoogeysanaya. Ruushka talaab walba ay qaadaan reer galbeedku waa uu ka sii xanaaqaa. markuu xanaaqana waxa uu sii hormariyaa tiknoolajiyadda iyo hubka uu adeegsanaya dagaalka. hadda dagaalku waxa uu ku soo biiriyay gantaaladiisa hypersonic. waa gantaalada hadda keenay magaalooyin badan inay la mid noqdaan magaalooyinkii horey loo weeraray Suuriya iyo Ciraaq iyo Afghanistan ka mid ah inay la mid noqdaan oo bil gudaheeda meesha uu uga dhigay lama degaan. hadda magaalada Mariupol yiraahdo sida khibrad ay sheegayaan sida hadda wax ku socdaan oo dagaalka haddii bishan maalmaha ka dhiman oo kaliya ama 5 cisho soo socota lagu sii dagaalamo, magaaladaasi waxay noqon doontaa lama degaan oo ka dhigan in wixii daar ku yaalay dhulka lala simi doono. sidoo kale magaalooyin kale oo Kharkiv iyo ay ka mid tahay ayaa ku jira. xitaa Kiev qayb ka mid ah ayaa hadda saas isku bedeshay oo la saadaalinaya iyaduna dagaalka in uu burburin doono. Ukraine in ay dib u dhisanto waxay qaadan doontaa 10 sano hadda dhiman. sababtay tahay dib u dhiska ayaa waxa ku bixi doonaba waqti iyo qorshe iyo qarash. sidoo kale dadkii ka cararay wadanka kuma soo dhiiran doonaan in iyada oo aan isfaham buuxa la gaarin inay dib ugu soo laabtaan. sidoo kale dadku haday soo laabtaan xaggay degayaan, xaggay ku soo laabanayaan, guryahoodii waa burbursan yihiin. dowladdaasi ama dowladda Ukraine waxaa waajib ku noqon doonta dib u dhiska wadanka. okay, qarashkaasi ma ka bixin doonaan reer galbeedka shalay dagaalka geliyay wadanka ma u dhisi doonaan? waa su'aal badan oo la isweydiinayo. sababta xitaa wili dagaalku waa u socdaa, rajo kale lama qabo. ilaa haddana ma jirto dal dhahaya war Ruushka raali noqo, wixii waaba dhaceen, waa kana hadda aan wada hadalno, aan meel wada fariisanno, bal maxaa doonaysaa? laakiin dal walba oo Mareykanka ugu horeeyo wuxuu doonayaa awood Ruushka inuu meeshan ku burburiyo. Ruushka isaguna fursad kale ayaa u tahay hubkii iyo tiknoolajiyadii casriga ahaa ee uu soo saartay ee uu ku dagaalami lahaa ayuu ku sii tijaabsanaya si midkii wax ka qaldan uu dib ugu soo soxo oo u soo samaysto. hadda waxa la leeyahay hub aan la aqoon ayuu Ruushka adeegsaday. waxay ka silayeen Mareykanka iyo dalalka kale reer galbeedka ah hubka qaar iyo gantaalada qaarkood nooc hore loo arkama ay leeyihiin. waxyaaba kale hadda laga cabsi qabo waxay tahay Ruushka haddii uu arko dagaalkan in khasaaro badan uu ka soo gaarayo wuxuu ku khasbanaan doonaa inuu iska afjaro. wuxuu adeegsan doonaa kiimiko sun ayuu adeegsan doonaa, taas oo horeyba ugu adeegsaday dadkii reer Syria. daawade bal adiguna maxay kula tahay aragtidaada? qaybta hoose kommentiga noogu soo qor. mahadsanid. barnaamijkeena xogta dunida qaybta wanaag intaas. qaybta xigtay barnaamijka intaan ku kulmi doona nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.